السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dhageystayaal Ramadaan Kariim kuna soo dhawaada taxanaheennii sheekaalgameeda dareemin geerida iyo qaybtii toddobaad. Markaanu qureecanay ayaa laarmi dhuungeela ah lagu dhuftay, kolkaasaanu degdeg u soo feelnay. Taliya kooxeedyadii inta gaar loo bixiyay ayaa unug walba taliyaheedii lagu feeliyay. Dabadeed isku shaandhayn la bilaabay. Isku shaandhayntii oo socota ayay fiilo kala dhanka midig nagaga soo baxday. Kolkaasuu qoslayay yidhi, fiiri, jubbad yartii oo dhan bay goshan isugu keentay. Alla muxuu tukuhu qaar badan isha ka dhuuqi doonaa. Markaasaa hal mar qosol la isku daray. Mas-uulkii hortanada taagnaa oo falaadka qoslayay aad u yaqaanay ayaa yidhi, qoslayo istaagoo ku celi waxii aad tidhi ee ciidanka saa uga qosliyey. Hadalkii hore inta uu iska garamaray ayuu ku soo koobay, naftii hore isyaana isma sirto baan idhi. Kolkaasaa sidii si ka daran haddana qosol loo kala daatay. Qiyaastii saacad iyo badh ayay xubnihii maamulka ahaa isku kaana badbedelayeen oo nugubaabinayeen. Khudbaddii mas-uuliyiintu markay dhammaatay ayaa fallaadh loogu diray xuuraan iyo ilaalo cadow aagga nagu xeeran in ay ku soo roondeeyaan. Waxaana howlgeliye looga dhigay naftii hore Cabbaas. Unug sideedii u duubanna halkaa iyo galbeed ayaa loo sii daayay. Ciidanka intiisii kale rugta kormeen ooga bixin. Roondadii fiidkii ayay soo dheelmadeen. Xogna waxay ku soo heleen in ciidan xabashi ah barqadii soo fadhiisatay ceel xooluhu ka cabbaan oo qiyaastii noo jiray 8 kiiloomitir. Intaa waxaa dheer inta shacaba ay ceelka ku dhibaateeyeen 2 wiil oo dhalinyar ah oo ay ka shakiyeen weli ay u xabisan yihiin. Ciidankii aad howlgelisay ee aan horjoogaha kaaga dhigay 7 naftii hore ayuu ahaa. Guray iyo Jamaal Aawe ciidanka lama socdaane. Taliyihii ayaa weydiiyey naftii hore Cabbaas. Kolkaasuu ku jawaabay, taliya waxaan ku reebay gaalada ceelka fadhida dhaqdhaqaaqooda ay la socdaan. Naftii hore waajib aan lagu siinin ayaad ku go'aan qaadatay. Naftood horeyaasha wixii soo gaadha adaa lagaala xisaabtami. Hadalkaas oo canaan ka taagnayn ayuu taliyihii Cabbaas ku celiyey. Habeenka gelinkiisii dhexe markay tahay ayuu nagu fadhiistay roob gufaacaale. Habeenkii oo dhan ayuu nagu hayay mar qura isagoo noo jimcinin. Waagu markuu dilaaca ayuu haddana mayay gaaxday. Woodihiisii la soo kacay oo ilaa hadhkii nagu hayay. Curashadii dayrta maanta kow iga dheh, xagaagiina igu salaan xaalku weeye, eebaana mahaddaa leh. Jubbadii xumeed ee maalmihii kaliisha kulayl dartii aan kolkol tuuri gaadhay ayaan markan oo kale soo xasuustaa janno gashadii soo iibisay. Kol hadday meel walba xareedii jiifto, gaaladii sabooyinka biyaha ii dhex fadhiisan jirtay sawkaymaha iguma soo booqan doonto. Kolkaasna bakhtigeeda markuu ka hamiiq beelo waraabuhu soo ii soo ducayn maayo. Umale markay roobku noo do'o een gaalka ridiqnaan raaxaysan doona. Waa ila taraartay ee abbaaro 8 duhurnimo ayuu roobkii naga qaaday. Kolkaasaa isku marshaah iyo bariis dabkana loo saaray. Sayixu waa ka gaajo badan yahay waqtiyada kale, sidaa darteed inta dabka laga qaadi ayaan tigsanayaa. Daqiiqada kadib saadii shaaha dabka looga qaaday ayay noo yimaadeen ciidankii unugta ahaa ee shalay galbeedka nooga ambabaxay iyagoo sida qori BKM ah iyo 2 baasuuke. Qorshaha kolkii hore ciidanka loo diyaariyey wuxuu ahaa in jidka loo galo awraalo sirdoonka jabhaddu uu ka war helay jidka ay soo mari doonaan iyo waqtiga ay ku soo aadan yihiin labadaba. Kol haddaan kuu sheegay in sirdoonka jabhaddu xogtaas keenay, looma baahna inaad isweydiiso sidee ayay u ogaadeen iyo wixii la hilmaamo su'aashaas. Shaahi ciidanku waa wada cabbay, balse qadarta Rabbi bariiskii lama calfanin. oo maxaa sababay? Xagga dambe ee sheekada ayaad ka ogaane, ila soco. Shaahi markaan afka ka qaaday anoo baydhkii dhaqdhaqanaya oo aan weli beelka ku xaraynin ayayna soo galeen 2 naftii hore oo ruclaynaya. Waa Jamaal iyo Guraygii uu shalay Cabbaas ku reebay aaggii gaaladu fadhiday. Waxay ku warbixiyeen gaaladu hadda jeerta way ka soo dhacday, waana 3 fiilo oo iskarab socota. Jeerta ay wiilashu sheegeen waxay noo jirtaa qiyaastii 6 kiiloomitir
haddayna ka yarayn. Hadal kale meesha ma yaalee, laarmiga ayuu ku dhuftay taliyihii, kolkaasaa degdeg la isu soo tuubay. Hoodaalihii indhacasar ahaa ayaa shaqada la wareegay. Ugu horreyn wuxuu naga riday waajibaadkii, kolkaasaanu ashahaadanay oo xabiibkana ku sallinay. 3 daqiiqo waxaan ka badnayn ayuu khudbaddii ku soo afmeeray. Hadalkiisii waxaan ka xasuustaa 2 mid uun ku xisaabtama, saadka cadowgu sitay inaan ku qadayno iyo inaan jannada ka qadayno. Isugeyn waxaanu nahay horin iyo 2 kooxood, balse gaaladu intaas aad bay ooga badan tahay, ugu yaraan way nagu laban laabmi. Qushigeeda 2 kooxood dhinacyada ayaa laga dhaadhiciyey si ay ula kala wareegaan 3 kooxood. Annagoo ahna saf ballaadhan ayaanu ku dhaqaaqnay. Ilaa 10 daqiiqo markaanu dhankeedu u soconno ayaanu laa gudban oo dhexda ah isku ballaadhinay. 2 girnoof iyo 1 baasuuka annagaa la hadhnay. 2 kooxood ee hareeraha loo kala dirayna mid baa loo dhiibay BKM, midii kalena RPG ayaa lagu raray maadaama dhinacyadii dhagaxyalayda ahaa ay mareen. Aykoomka abaanduulka ayaan ka dhex maqlay codkii naftii hore Timcadde oo leh wayna soo dhaafeen. Waa tahay inta yidhi ayuu annagana noo sii raaciyey waryahoy diyaar garooba. Gaaladu xogtannada way haysaa oo waa sababta ay dhankanaga u soo aaday, balse xog dhammaystiran ma nagama hayso. Sidaas darteed istaraatiiji dagaal mayna qaadanin. Way naga tira badan tahay, wayna naga saanad roon tahay, balse diyaar garowganaga ayaa dhammaystiran. Iyadoo dhagala oo 3 fiilo ku socota ayayna soo jiidhay, kolkaasaanu hal mar qoryihii daarka ka qaadnay. Sidii rasta dunta ayayna hor daadatay. Cabaadka qaylada ka bixi malayn maysid. 3 qaybood ayay xaalku ka dhigay. Qayb dhaawaca bannaanka firix dhabanaya ah, qayb bakhtiday oo laabta iyo madaxa rastaastarnadii ka warjeeftay oo aan dhaqaaq lahayn, bannaankana iska daadsan, iyo intii badnayd oo kolkii hore inta madaxa isla wada gashay haddana dib u yaacday. Iyadoo rogaal celisa ayay saf ballaadhan nagu soo gashay, kolkaasaanu jilbaha isu aasannay. La soco qaybta 8aad iyo sheekaalgameedha dareemin geerida.